inaad kelmad ku tidhaahdo inay cadhoonayso in wejigeedu bedelan yahay ya ilaa carruurta iskuulka dhiganaysaa la waraysanaya aabbo iyo hooye miyay islaayaan miyay dagaalamaan ha muxuu aabba kugu sameeyaa ha hooye ka waran dee saaxiib ka waran iskuulkii baa laga warsanaya oo dhakhtarkii baa laga warsanaya oo macallimadii baa warsanaysa xaalad ilaa jaarkaagaa ku og laga yaabaa inay boolis dhalcad yihiin dadka jaarka kula ee caddaankii laga yaabaa inay kuwii immigrationka oo dharcad ku xidhan yihiin saaxiib adna laga yaabaa caawa inay ad jaadkii intuu kugu yar kala go-ayaad lacagtii caydhi isku layseen alla way iga daa telefon ba yar garaacaysa xaafadan jaarkayga dhib baa ka jirta wallahi waa lagula joogayo bilahi dhag booliska markaaba kula jooga war macirkaa lagaa eegay waxaan anigu jaar la ahaa arrin yaro qurbaha ka dhacdaa nii sheegaya nin iyo naag ruusha oo jaar ila ahaa ayaa laba ninkii iyo naagtii islaayeen ninkii baa migrationka tegey wuxuu yidhi dabeecaddiisuu ogaa wallahi been niima sheegay naagtu inay dabeecad xun tahay buu ogaa carruurtay layn jirtay guri gaaruu tegey wuu guuray ribood buu dhigay migrationkii wuxuu yidhi naagtaydu carruurtay laysaa kamarad baa gurigii loogu xidhay iyagoo ka maqan iyagoo iskuulka ku maqan ayaa kamarad loogu xidhay waa naag dabeecadda lahayde carruurtii bay laysay kamaradii baa duubtay waa lala socdaa wallaahi indhaheegoo shana ayaa carruurtii laga qaaday maxaa layga qaadayaabay tiri waxaa la daawadsiiyey carruurtii iyadoo guriga ku dhexlaynaysa dhag 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 waxaan daawaa lagu yidhi adeer carruurtaada ma ku samaysay sidan waa lagala wareegay carruurtii la soco saaxib markaa adeer waddankii africa ma joogno adoo guriga ka yar maqan baa kamarad lagugu xidhaya takhalad ku samee almailmaha ku samee waa lagula socdaa jaw sheekadaada way dhanta markaa saaxib waxaa qurux badan labadays aaminsan midda kale taan ka hadlaya ah nin waliba sudo africa dee hadday nintu wanaagsanayd africana way wanaagsanaanaysaa hadduu ninku wanaagsanaana way wanaagsanaanaya xaqiiqada marka laga hadlo kalsoonida labada qof ka dhexaysay inkastoon bad baan ku dhex jirnaa mawjad baan ku dhex jirnaa mawjad sheekh kasta haddaad tahay iyo shariif kasta haddaad tahay dadkan dhaqankaan ku dhex jirno waa ku leexinayaan dhaqankiibaa kaa xoog badan dhaqankaan ku dhex jirno ayaa inaga xoog badan dhaqankeennii maah waa dhaqan gaal ciyaalkiibaa ku dhaqmaya ciyaalkiibaa iskuulka wax lagaga soo dhaadhicinaya islaantiibaa markay iskuulka tagto wax lagaga soo dhaadhicinayaa war dhaqanka waa dhaqankaa xoog badan saaxib wallahi dhibaato adag baa taal laakiin inta badan anigu waxaa saaraa ragga iyo dumarku labaduba way khaldayin midna gaaro ma khaldana ragga iyo dumarku labaduba way khaldayin sababto ah awrkaba xidhow cusmaan su-aasha ka jawaab bay dee su-aashaad keentay naagta marka la furo carmali baa la ydhaa carmali waa la yaqaantaa saaxib ninka marka la furo maxaa la ydhaa de waa carmal isna carmalnina iyo carmar naagay kala yihiin waa caynkaa weeyaan waa nin carmala iyo naag carmala sheekadu waaba caynkaaba war ninkaasi wuxuu soo furay laba naagood buu soo furay oo wallahi waa carmal oo maaha weli doob ninkaa weli guursan waxaa la idhaha soomaalida waa doob iyadana waxaa la idhaha war wallahi laba nin horaa soo furo waa carmali maaha bikrad isna maaha nin dee weli carmal rijaal waa caynka carmalnina iyo carmal naaga ayaan u kala aqaan dee af soomaaliga inkastuu kala duway sidaasaan u kala arkaa yaa kaa diiday markaa ma waxaad leedihi ninku carmal ma noqdeen naagtunba carmal noqota war ninkii wax soo guursaday waa carmal ee tu kala guursanaya anu fikirkaan aaminsanay ninkii wax soo guursaday ee aan xaas hore furay ya xitaa marka lagu meherinayo sheekhu kuu meherinayo ninka su-aal baa la weydiiyaa saaxib awr kaba xidhanow adiga awr kaba xidhanay sheekhu markuu kuu meherinayo gabadha waxaa lagu yidhaha su-aal baa maad soo guursatay gabadh miyaad soo guursatay isaga gabadhana kuu kowa eeg su-aashaa sheekhu waa ku weydin waxaad odhanaysaa haddaad soo guursatay waxaad leedahay gabadh waan soo guursaday laakiin waan kala tegnay haddaad tahay ninaan weligii gabadh guursanna waxaad leedahay waar weligeyba maan guursan sax culimada u fiirso
markay gabadha ku meerinayaan waxay ku weydiinayaan inaad gabadh soo guursatay iyo inaanad soo guursan labadaas su'aashay ku weydiinayaan iyadana waa la weydiinayaa saaxib ama bikrad baa tahay sacadrad baa tahay baa la leeyahay saaxiib la soco marka aadni u dhibaatada qurbuhu way iska jirtaa ragga iyo dumarka qurbaha jooga nin kasto Cusmaan waad garatay waad garan weydi hayawrow adiga siday kula tahay dadku isku fikran ma sax intaana waad ka hadli kartaa anigu laakiin fikirkaygan ka hadlaya bilaa alik isku fikir manin waad soo qabsan kartaa meegina oo niga dagay laakiin waxa nii sheegay qurbaha dhibaato adag baa tal dhibaato adag ninka iyo naagta dhaxda u xidhata caruurteeda ee u soo jeesata ninka reerkiisa u soo jeesta iyo naagta caruurteeda u soo jeesata ayaa qurbaha ka bixi kara oo xaqiiqa oo leeyahay play haddii kale waxaan allah koorma dabada waagaygu ka bari qofka u soo jeesta reerkiisa naagta u soo jeesta reer kaasaa qurbaha ka bixi kara ee daacada noqdo oo leeyahay play tule haddii ay daacadi ima weydo waxa loo xagaagayaa ma jiraan ay kalsooni ima weydo waa inay raggu u sabraan ay caruurtana soo qabsada awro aniga dee ay odhanay in badan baan ku dhageysanay assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu war dulcada waad mahadsantahay intaad meegeysiisay saaxiib aadna waan nii salaamayaa assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu وعليكم السلام دينا برهاي ايجا دينا در اكسوكي نو سو كوبنر قل ايج انو waxay wax gibigiisba waa shamrid soo koobena shakada wala badayay 148 qof ba ku jira qof baa fiiran oo hadlo oo doodis ka qayb qaato haday ilaa maanta sheeko ilaa maanta wada leysay sheekada waxay isku soo biishanaysaa waa matqana rag iyo dumar baa hal doorto reerka waa arrin fiican si fiican baa wada shay laakiin waxa waa 2 minute baa soo oran karaysa intaas inaar baa soo kooba لكن متقانا أنا أركب حيرانو ورت شيء كعرس بكنت والله بلا عرب ولا بلا مجرى ولا عرب ولا يجي ما نرك إيه أنا قلت بلا عصب أنا عاود بحنا أركب حيرانو ما عصب والله بحنا عاود عرملة إنه بحنا عرملة هذا اللي تيجي نسمع صحنا إنه قلنا بلا نكو على بحنا عرملة ده ما بلا عصب كله إنه كان أنا دبر رجل ما شفتي كذا لكن في مالت ما كنا هذا هو حكام الرجع كان لأنه دبر كان لينا والله دبر كان ليا أنا أركب حيرانو ما نبغى قبل تجي تبغى وانا قانا مرتي شكاس ما تجي والله واحد ريك قال بيرجع نقول أنا هذه البنك قال إيه قبل إنه يربي لنا كورمه إنه يربي لنا إنه يروح لي الاحتراق قولي ما فرستي شعب اللي سميه قولي مرة فرستي إنه كيرد واحد سوق عند ألبوم بسوق هذاك ألبوم بسوق هذا ألبوم كذا وسنة وأنا يروح الاحتراق تاني هالدواي وحبي وأنا راح مرة المقتحمة تاني إيه دواي تاني هبرر واي كان عذير واي سيلهاي أبيض بصباح أنا أبيض وأنا قانا موت كنا بنقولها كلها أبيض سي واي اقدموا إذا عيالكم بدها حفتين سنوت العيال واحد كا مركب كوركان لا أبوسي بسنا سوكا أصحاب ماين والله سيد مركب أبيض كما واي بكرة أبوسي واي كلا ونير الاحتراق دبر إذا متى سقط ماتن أذكر مركب عايز سنة نيجي سوفري بالعيال كوكا عينا العيال كوا عشلوا خذ قوانين يعني عيال كوا هو تبري الوقت بقول أبوسي واي وكذا عايز وقت يا كودا والمرة سبعة والبحنية أنا واحد يقول لنا نكتب لنا إن إلى هذا كل شيء أفتر بالسوية دتكوا قاتوني إنه وضعنا بربان وإنه واحد كتير أول سكر تمينا موت يا وان سكر تمينا عدي مرحنا لقى الله عدي مرة درج لقى الله لكن سوقوا أنا ما قارت شكله كراينا شكله سوقوا قف كذا 6 مليون قبلنا كلبنا إذا ما نستعقد في السوق ماي إذا ما تمرين بدل يجي سنة نص ساعة وهبار كذا قبتها موت مرة سوق بسبب